مدن مدحوينه مدنياشا قولياشا Somaliland مدح dhaqameedyada marwooyinka dhammaan shicibka Somaliland ee maanta sidan aan ogahay igu soo dhaweeyay caasimadda Somaliland aad iyo aad baan idin salaamayaa aad baan u qushuucsanahay waxaan u mahadnaqayaa hilmaanna igama ahe marwadii koowaad ee hore Amina Waris airport igu soo dhaweysay waan salaamayaa waan u mahadnaqayaa oo ina ardayday ahayd waxaan salaamayaa dadkii ka kala yimid gobolada dalkeena Somaliland magaalooyin kale ka yimid dadka shaqooyinkoodii u soo xiray maanta ardaydii marwooyinkii qaar baa cisbitaalka oo yaa cisbitaalka ka timaadeen dhammaan waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudane madaxweyne waxaan u mahadnaqayaa jamhuuriyadda Somaliland haddaan waxahay waata wax iga dhigtay waxaan salaamayaa xukuumadda Somaliland oo haddaan maanta nabad halkan ku joogo oo haddaan waxahay wax iga dhigtay waxaan salaamayaa ciidamada jooga faranka iyo kuwa halkan joogayna hareero jooga oo la'aantood aynaan sharafta iyo nabadda iyo quruxda aynaan maanta ku fadhineen salaan ka sheelaaba ayaan ku salaamaya ka dhow iyo ka fogowba waxaan salaamayaa marwada kaliya ee golaha guurtida noogu jirta saaxiibada Amina xabadaasaanu idinku soo darsanay noo ilaaliya waxaan salaamayaa shicibkii dariiqa taagnaa wadooyinka taagnaa qorraxda taagnaa ee sidii aanan tilmaami karin ii soo dhaweeyay indhahayga ilmo ku soo joojiyay badanaana ma ihi very emotional laakiin maanta waan ahay waayo farxad ayaa emotionkayga kicisay madaxweyne warbixin gaar ah igu leedahay laakiin warbixinta guud Somaliland maanta meel wanaagsan bay ayay maraysaa Somaliland meel wanaagsan bay maraysaa waxaan ka marxaati ahay horta safar karaan ku maqnaa 5 toddobaad baan maqnaa waa muddadii ugu dheerayd ee aan Somaliland ka maqnaado 25 sanadood ayna soo dhaafay 5 toddobaad oo isku xiga weligay ka maqnaan waxaan isu maray London baan ka degay markaan halkan ka tagay 4 saacadood baan transit ku ahaa airportka London dabeetana Barcelona u dhoof Barcelona ka imid London baan ku soo noqday London baan ka tagay Germany baan tagay Frankfurt Groningen Hanover Berlin intaasaan isu maray magaalada habeen baan u hooyanay waan ka tagay Sweden Stockholm Norway waan ka imid London baan imid London Cardiff 12 habeenimo gaari baan lagu waday wasiirka iyo aan ku soo noqonaynay xafladii Cardiff from Cardiff to London aroortiina 5 uu dhoofay wasiirku London waxa aad iyo aad u tilmaaman shicib weynihii Somaliland ee isugu soo baxay Trafalgar Square mar haddii calankeena Somaliland ee tawxiidka ku qoran uu ka babanayay oo intaas oo kun oo Somalilanders ay taagnaayeen aqoonsi inaga maqan waa kee haddii maanta caruurtii iskuulada ku jirtay Europe ee awal ka baqan jiray inay soo xidhaan caagii yaraayay calanku ku sawirnaa hadday maanta arday walba uu sito uu klaaska la fadhiisto Europe oo uu yiraahdo iskuulkeenan calankii dalkayga ka maqan oo loo soo dhigo oo calankiisa loo suro aqoonsiga maqan xaguu ku maqan yahay waxaan leeyahay halkaynu maanta marayno ilaahay bayna gaarsiiyay
iyo dadaalkeena ina gaarsiiyay iyo isku duubnaanteena sayna gaarsiisay maanta shicibkeena magaalooyinka joogaan soo wada mareen ka marxaati ahayn waxay isugu jireen xisbi walba oo aan kala garanayn laakiin Soomaaliland nimay meesha u yimaadeen oo u taagnaayeen u joogeen taasaana Soomaaliya wax ku noqonaysa doorashooyinkan maanta lagu dhawaaqay meel baynu uga soo wada jeesanaynaa Soomaaliland inagoo isku duuban xisbiga doonto u codeeyay laakiin si u soo bax oo muuji dadka ismoodaya dal ee marka caasimadooda ay 30 qof uun ay codeeyeen de tuulooyinkeena yarar baa 30,000 in ka badan ka codeysa ma dalka 30,000 ku faanaya ayaa 1 milyan ka Soomaaliland ka codeeyay isbarbar dhigi kara oo isku dheerarinaya markaan waxaan leeyahay anigoo aad idinku wada mahadnaqaya sida quruxda badan ee qushuuca leh ee dii soo dhaweyseen madaxweyne maxaynu sameyn maanta aqoonsiga helo hadaynu intan islaan yaroo afar magaalo soo yara martay aynu inta u dhigayno wax inoo marxiya farxada waaweyn baa inoo soo socda insha Allah wax inoo marxiya ducadana badiya isku xidhnaada madaxiina kor u qaada wax lagu faanad haysataan oo Soomaaliland baad haysataan oo dawlad wanaagsan baad haysataan haddaynan maanta dawladda adag iyo ciidanka adag aynaan maanta haysaneen xagaynu saddexda biloodayna soo dhaafay xagaynu joogi lahayn dawladdaas ayna badbaadisay madax jilicsan iyo dawlad jilicsan iyo ciidan jilicsan inama ilaalin kareen sida maanta dawladdeena iyo shacabkeena iyo ciidankeena ilaaliyay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ciidanka iyo shacabka iyo madaxweynaha Soomaaliland aad baad u mahadsantiin waan wada salaamayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh